waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan ciro ee booqashada shalay toole ku tegay dalkaasi qatar oo xalay toole laga helay xog kaasi oo wasiiradii la socday markaasi madaxweyne cabdiraxmaan ciro ay kulamo la yeesheen jaaliyadda reer somalilan ee markaasi ku nool dalkaasi qatar halkaasi oo markaa isxog waraysi iyo arrimo badan halkaa laysku dhaafsaday jaaliyadda xaaladeeda uga warantay iyo wafdiga oo markaasi hadda xogo ay ka soo baxayaan muhiimadda ugu weyn ee ay qatar u tegeen haddaba xogaha hordhaca aan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in qatar hadda qorshaha ugu ballaadhan ee ay jamhuuriyadda somalilan wafdigeeda ay ka wada hadlayaan ay tahay markaa iskaashiga xagga maalgashi badan oo ay somalilan ka doonaysa inay qatar ku samayso iyo qatar oo doonaysa inay hadda maadaama somalilan ay ku taalo boqocda istaraatiijiya in ay markaa ay ka mid noqoto wadamada saameynta ku yeelanaya xagga maalgashiga iyo markaa weliba xagga kale ammaanka ee security-ga iyada oo hadda qatar oo lagu yaqaanay in ay dhexdhexaadiso xaaladaha uu maraykanku markaa kari waayena loo diri jiray oo markaa kooxaha xag jirka iyo markaa dowladda maraykanka oo kale ay dhexdhexaadin jirtay ama yacni meelihii la kari waayey dee colaaduhu ay ka socdaan iyadoo xalinta ayay qaabilsanayd laakiinse hadda waxaa la sheegayaa qatar in ay isku bedeshay oo hadda markaasi ay ka qayb qaadanayso xulafada xalinta badcas ee markaa xalinta badcas iyo gacanka cadmeed kaasi oo markaa ay ka qayb qaadanayso qatar kadib markii ay duqayn ku samaysay iiraan saldhigyo markaa maraykanku leeyahy oo dalkaasi qatar ku yaala kaasi oo ay kaga jawaabaysay markaasi dalkaasi iiraan duqayntii uu markaasi madaxweyne maraykanka Trump amray ee markaa lagu duqeeyey dalkaasi iiraan meelo markaa nuclearka lagu tuhumayay haddaba wadamadii kale may weerarin iiraan qatar oo markaa dal nabadeed ah iyo dhexdhexaadinta iyo howlahaasi qaabilsanayd ayay markaa dhowr gantaal ku dhufatay taasi laftarkeeda waxaa la sheegay in hurdada ka kicisay qatar oo ay doonayso in xulafada markaa maraykanku hogaaminayo ay ka qayb qaadanayso hadda oo yacni goobaha istaraatiijiga saldhigyada oo maraykanka ka furanayo iyo markaa xulafada la dagaalanka kooxaha markaa dee xasilooni darrada ka abuuraya gacanada muhiimka ah sida gacanka cadmeed iyo markaas baabalmadab iyo eriyada dhinaca kale dhinaca gacanka hormuus oo kale ay xalinta markaasi wadamada xulafadaasi ay ka qayb qaadanayso taasi ayaa keentay ba layidhi hadda in ay somalilanna markaa ay xidhiir la yeelato maadaama boqocda istaraatiijiya ay ku taalo dhinaca kale waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka kooxihii huwanta oo hadda markaasi burbur uu bilaabmay iyo markaa kooxa si habqana la sheegay in ay markaa iskugu soo dhiibayaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ay ku soo biirayaan iyagoo hubkoodii iyo tignikadoodiiba wata waxaana ugu dambeeyey markaasi ninka la yidhaahdo janaal sibidhiqo oo markaa 10 tignika ah wata iyo ciidankiisii oo markaa hadda ciidanka qaranka somalilan isku soo dhiibay waxaana la sheegay in ay markaa in ciidanka qaranka ka mid noqdaan hadda ay codsadeen haddaba khataro weyn ayaa hadda waxaa ka soo baxaya digniino la sheegayo dhaqdhaqaaqyadan huwantu ay wado inaanay ahayn burbur u bilaabmay iyo habqantoona laakiin filin kale ay tahay baa layidhi sidii caadada u ahayd waqtigii dagaalkii gooja cadde iyo markaasi intii ka dambaysay waxay samayn jireen markay weerar maagan yihiin kooxa ayay soo diri jireen oo oran jireen waan isa soo dhiibnay iyo markaa ciidan ka soo goostay baan nahay dee huwantii bay oran jireen kadib markay 2 wiig joogaan xog badan iyo sirdoon iyo xog ururin ay sameeyaan lacagtii iyo kharashkiina ay ka qaataan markaasi dee xukuumadda somalilan ciidanka qaranka moogta dee mushaaradii la siinayay qaybtoodii ay qaataan ayay ka dhex toosi jireen oo markaasi ay dhabarjabin ku samayn jireen ciidanka qaranka dhacdooyinkii horeyna soo maray ayaa hadda xogo sirdoon waxay shaaca ka qaadeen in nimankani ay markaa filinkaas oo kale maagan yihiin sidaa darteed waxaa loogu baaqayaa ciidanka qaranka somalilan taliyihiisa iyo weliba dee xukuumadda somalilanba inay aada uga feejignaato oo ay u dhug yeeshaan nimankaasi iyo filinkay maagan yihiin iyadoo oo la sheegaya habka ugu wanaagsan in ay tahay in nimanka sidii ciidamadii madaniga loo qarameeyey
markaa hubkana dee looga dhigay xeryaha tababarka loogu diray tabtaasoo kale in la mariyo oo markaa xeryihii tababarka la geeyo hubka iyo waxay sidaan markaa ciidanka qaranku la wareegaan haddii ay diidaanna waxaaba wararku sheegayaan inay diidan yihiin waxaa la wacan oo kale in markaa laga qaado goobta ay joogaan oo aanay ku urursanaanin oo galbeedka oo kale ama dee yacni bartamaha xukuumadda jamhuuriyadda somaliland goboledeeda bartamaha ku yaala in la geeyo markaa ciidamadaasi isa soo dhiibay haddii kale waxaa la yidhi sidii caadada u ahayd ayay markaa ciidanka qaranka dhabarjabin ku samayn doonaan digniina hadda soo dhacaya ayaa ka digaya markaasi xogaa aan helayno qodobada iyo qodobo kale ayaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka kusoo dhowaada waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan ciro ee ku tegay booqashada dalkaasi qatar ayaa xalay toole markaa warbixin laga helay qaar ka mid a wasiirada la socda madaxweyne cabdiraxmaan ciro ee markaa wafdigaasi ku wehelinaya ayaa lagu arkay markaasi iyaga oo la kulmaya jaaliyadda jamhuuriyadda somalilan ee ku nool dalkaasi qatar wasiiradaasi waxaa markaasi ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha cabdilaahi sandheere iyo markaa wasiirka madaxtooyada qatar iyo wasiirka diinta iyo awqaafta cabdilaahi baashe ayaa markaa ka muuqday muuqaalka sawiraanta ah ee qaar ka mid a dadka reer somaliland ee qatar ku nool kaasi isku xog wareysanayeen haddaba waxaa la sheegayaa in jaaliyadda reer somaliland ee markaa joogtay qatar ay u baahnaayeen in ay markaa horta kulli wafdi somaliland ka socda u yimaado waayo xaalad gaara ayaa haysatay markeedii hore baa la yidhi kaasi oo ay ka mid tahay ciidamadii dad ka socday markaasi somaliland iyo dee soomaaliya ee qatar ay qaadatay ayaa waxa ay dowladda fadhiidka soomaaliya markii la yidhi ciidamadii shisheeyaa kaa tegaya dee yani awsamtii oo kharash loo waayey waxa ay markaasi qatar usoo qorteen ay ku yidhaahdeen ciidamadii ay soomaaliya kugu keentay kuwii somaliland xitaa ay ku jiraan noo soo wareeji si ay markaa ammaanka uga qayb qaataan bay yidhahdeen shabaabka ula dagaalamaan kooxaha shabaabka taasi oo bil ka hor ay codsigaa dowladda fadhiidka soomaaliya gudbisay ayaa qatar markaasi ay ka aqbashay in ciidankaasi markaa soomaalida ahaa la geeyo kuwii somaliland iyo kuwii soomaaliyabada dowladda fadhiidka loo geeyay si ay shabaabka ula dagaalamaan taasi ayaa keentay in ay ciidankii markaa somaliland ka socday ay diidaan oo yidhahdaan anagu ma tegayno xamar iyo markaa muqdisho iyo aagaasi waayo anagu soomaaliya ma nihin waxaan nahay dad reer somalilandna saa darteed annaga nama khusaysa bay ku yidhahdeen shabaab loola dagaalamayo arrinkaasi oo jiiq noqday ayaa markii dambe waxa ay sheegtay ba layidhi qatar in xaaladooda ay dib u eegi doonto marka kolley jaaliyadda joogta markaa reer somaliland ee qatar arrimaha kolley wafdiga kala hadlaya laftirkooga hawshaasi ayaa ku jirta baa la yidhi dhinaca kale xogo dheeraada ayaa hadda ka soo baxaya markaa in kulamada ay u bilaabmi doonaan xukuumadda jamhuuriyadda somaliland wafdiga ballaaran ka socda iyo mas-uuliyiinta qatar waxaana badi hadda xogahana soo gaadhaya ay sheegayaan in ay muhiimadda ugu weyn markaa ka wada hadlayaan horta waa laba qodob baa la yidhi waa xagga ammaanka iyo xagga markaa maalgashiyo ammaanka oo markaa ay u baahan tahay in security-ga qatar ay uga baahan tahay somaliland waa maxay waxa weeyaan baa layidhi waxa ay doonaysaa buqcadahan istaraatiijiga ee somaliland ku taalo iyo saldhigyadan ay markaa wadamada ka samaysanayaan caalamku inay ka mid noqoto sida oo kale qatar waxay ku jirtaa xulafada maraykanka marka awal xagga dagaalada iyo howlahaasi umay qaabilsaneen xagga xasilintii waxaasay u qaabilsanayd laakiinse gantaaladii ay iiraan ku dhufatay baa la sheegay inay hadda hurdada ka kicisay oo markaa iiraan ay doonayso inay ka qayb qaadato ay doonayso qatar ee wadamada xasilinta markaasi badda cas loo yaqaano mogtahay Red Sea Alliance loo yaqaano gaashabuurta difaacaysa markaa ama xasilinaysa badda cas taasi oo ciidamada Ethiopian laftirkooda ay ku jiraan ciidamada baddu Mareykankuna markaasi uu hogaaminayo iyo Imaaraadka iyo wadamadu way badan yihiin marka inay qadarna ka qayb qaadato oo ay qaybteeda qaadatay doonaysaa iyo sida oo kale inay Somaliland galaangal la yeelato oo mogta xiriir la yeelato maadaama Somaliland iyo qatar ay awal siyaasadda ku kala fogaayeen marka iyada muhiimadda ugu jirta inay marka la kulanto wafdiga madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo ay u soo dirto casuumaadda qodobkaasi ayaa iyada ugu muhiimsan Somaliland waxa ugu muhiimsan baa la yidhi in dee maalgashi badan ay ka heli doonto oo qadariyiintu waxay ka mid yihiin wadamada aadka wax u maalgashada Mareykankaasi waa ognahay
madaxweyne Trump inuu dhowaan markaasi tagay Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga kaasi oo ka dalbaday in maalgashi ku sameeyaan dalkiisa isagoo super powerkii dhamaaya caalamka marka muhiimadda xagga maalgashiga iyo kabista ay markaasi ku bixiso xukuumadaha ay siiso lacagta kabka taageerada ay marka aad ugu fiican tahay talaftarkeedu waa arrin muhiim ah waa baleeri Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka intaas uu ku dhan yahay nabadgelyo